بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الله ما هذا سكله وين سيينا سوق بنا عشرة تعناها وسكح حجي وها أوفيس اللبض كونه يسقالي طبعا كان مايكروسوفت إكسل بان مرينا ليسان تو بانو سوق بينا وانا very important تاسي إذا عشرة فربنا كسوق ذا فايدة سنة هذا الطلاب أنا رأسي قادنا هذا الطلاب أنا رأسي عندنا وانا مهم جدا تاسي okay casharadani maanta waxaan sii arkaynaa casharka labaad inaan usoo gudubno waana very important taas hadda tilaabaan hore usii socon doonaa buugaagta kala duwan ayaa casharka ka aqrin doonaa buuguna ka socon doonaa laysan tuu buugga markaan aragno ayaan practical u galaynaa waana muhiim jiddan taas maadaama aan rabno inaan baranno excel accounting oo aan waafajino xisaabaadka dukaankeena ama aan waafajino xisaabaadka shaqadan ku shaqeynayno haddii uu yahay campaign introduction waa soo akrinay waxaan u gudbaynaa casharka koowaad halkaasuu nooga bilaabanayaa okay starting Microsoft Excel for Windows click start buttonka kadib waxaad dooranaysaa program kadib Microsoft Office waa ka dhex dooranaysaa Excel ama banaanku noo yaala Excel ka dooran karnaa ama waxaan soo saaranay task bar kanaga وانا جسين دونا سيدا تسكبر كان وصو صارني no okay vertical lines sheet of the sheet every injection of row column ماشي اسكا جران waxaa la yiraahdaa cell row walba iyo column walba meesha iska jiraan waxaa la yiraahdaa cell cashirkii hore aan ku soo sharaxnay saa la soco marka sheet current sheet that you are working sheet ka ku dhex jirno aan ka shaqeynayno in click book that contains all the other elements wuxuu ka koobsanaan doonaa elements kale parts qaybaha of Microsoft Excel Windows kan ku isticmaalayna bay ku xiran tahay marka okay title barka tabiska tool barka formula barka iyo name boxka waxaan maanta arki doonaa name boxka work area sheet tables scroll barka row numberska iyo column letterska waa arki doonaa waa casharkeena labaad la soco buugga laga aqrinayaa click Microsoft Office button menu kadib waxaan dooranayaa choose new ama control new oo ku filan inaad taabato kadibna mid cusub buu ku siinayaa blank workbook cusub buu ku siinayaa choose waxaad doorataa ama create buttonka dooro kadibna hore u soco adiga isbari kara arday oo la soco Microsoft Excel 2019 save book sound save gareysan karno arki doonaa must assign where you want to store halkay ku keedin doontaa ma desktop ka dhigan doontaa ma flash ba ku qaadan doontaa file kaaga on your computer kaaga hard disk xagee kaga keedinaysaa way banaanka soo dhiganaysaa mise gudaha ku haysanaysaa dokumentiyada meesha ku save gareewa xagee ku save gareynaysaa waa su'aal in order location waa inaad doorataa goobta aad dhigi doonto casharkeena practical iyo isugu jira iyo theory hadda tallaabo in la sii qaado waa ballantii aan ugu talagalnay ardayda kala duwan Microsoft Excel 2019 baan ku guda jirnaa waana Somali Star Online Training ida professional casharo kala duwan aan qaadan doono iyadoo casharadeenii halka ay ka sii socdaan baa waxaan ka sii faa'iideysan karnaa inaan hadda tallaabo hore u sii soconno casharadeena si ardaydii jecel casharadan hadda tallaabo iyadoo la qaadaya loo gudbaya okay marka maadaama introduction ka ku akrinay toolbar ka inaan aragno name boxka laysan tuuban ku jirnaa iyo inaan baranno Excel saan save gareysan lahayn okay oo password nagu sii xiran lahayn haddii aan ku xirnayno password markaan save gareynayno waxaan dhigaynaa documentiga waxaan dhigi karnaa desktop ka dooran karnaa opening and exiting book xiritaanka buugga iyo furitaankiisa okay waxaa iga filan macnaha control O waa open control F12 waa exit oo kale ama exit baa dhigi kartaa inaad doorato file in select file ka dooran doontaa select gareyn doontaa that location contains your book buuggaaga waxaad dhigi doontaa waxaad sheegi doontaa meesha aad dhigayso in the file name file ka magaciisa text box
name or select in the book list baa u samaysan doontaa. choose waxaad dooran doontaa keliga adoo siinaya button press enter. markaa save book baa samayn doontaa with password. cashirkeena aan ku arki doonaa inaan password ku xirno. okay, book waa iska laabeynaa. waxaan rabnaa practicadii inaan soo guda galno iyadoo cashiro fara badan aan horey uga soo wada faa'iidaysanay ardayda kala duwan. waa Somali Star Online Training. cashiradii weli waxaan ku jirnaa aan kaga hadli lahayn Microsoft Excel 2019 iyadoo cashiradana step step aan uga faa'iidaysan doono. ardaydii jecleed cashiradan tartiib baan u socon doonaa, waana muhiim jiddan. taasi Excel markaan soo dooranayno start button anaga waxaan soo saarnay taski barka, laakiin kama dooranayno. waxaan idin tusinayaa halkan all program, halkaas uu soo qabsanayaa Excel 2019 ka rabno waa inaan ku shaqeyno. cashirka labaad markaan soo galo tartiib baan isu dul taagi doonaa arday oo ila soco. buuggana waan ka akhriyay. okay, toos baan u dooranayaa marka Excel 2019. adika waxaa haysan kartaan softwareada kale waa la mid, waana muhiim jiddan. taasi wixii macluumaad waxaa la soo xiriiri doontaa Somali Star Online Training iyadoo cashiro fara badan aan ka faa'iidaysan doono. cashirkeena labaad waxaan ku baranaynaa toolbarka iyo nameboxka. nameboxka waa halkan markaa wax qoraya soo qormayso. haddii aan taabto qoraal buu soo gelinayaa namebox. haddii ka waran aan taabto xisaab, haddee baan joogaa b c d e rowgaas ayaa la soconaya. columnkan wuxuu ila soconayaa numbers, number 1 number 2 number 3. columnka wixii dherer ah oo column ah, wixii rowgan waa wixii jiif ah. nameboxka haddaan halka ku qoro tiro ku qoro oo inta aan iraado dhexdu soo qabsanaysaa tiradaasi waxay qabsanaysaa halkaan nameboxka uu soo qorayaa. haddii qoraal aan qoro ka waran ya aan idhaahdo true, inta aan idhaahdo dhexday qabsanaysaa. waayo true wuxuu u yaqaanaa Excel functionka true, false ana wuxuu u yaqaanaa isna dhexdu soo qabsanaya. programku ku dhisan yahay labadan failba way ku dhisan yihiin true or false. Excel way ku dhisan yihiin la soco, dhexdu soo qabanaya. xisaab geeskan hore soo qabsanaysaa. xisaabtan qoro inta aan iraado dhinacan midig bay qabsanaysaa. qoraalna dhinaca bidix bay qabsanaysaa. name haddaan qoraade oo inta aan iraado dhinaca bidix buu qabsanayaa. nameboxkan ku sheegayna waa halkan aan soo qabanayo qoraalada. markaan qoraal walba qorayo nameboxku soo qabsanaya. functionkana waa kan. toolbarkaan rabna cashirka inaan ka qaadano waa kana toolbarkeeni waa halkee? waa halkan toolbarkeeni. halkan korena waa menu barkeeni. halkan kore waa menu barkeeni. insert waa niman karnaa page layout, formulas waa formulooyinka isticmaali doono, date datadii, review, view, focus reader markaan ku xirano pdf way computer waa kusoo shubana anaga online kama raadinayno pdf ta, amaba configuration inaan software pdf isku bedelo kuma shubanayno. waxaan ka isticmaalaynaa keena caadiga quickbooks haddii aan la shaqeynayno halkaasaan kala soconayno. okay, waan fahanay. halkan kore wuxuu yahay markaa waa menu barkeeni dhaqdhaqaaqan ka sameynaynay. hadda waxaa active inoo ah home ka active inoo ah. halkan waxaan ku baranaynaa marka copy iyo paste oo clipboardkaas. halkan waa fontskii Excel wixii la xiriiray. halkan waa paragraphka Excel kasoo noqon doono. halkan waa xisaabaadkii managementii inaan sameyno oo xisaabteena aan la soconno. halkan waa formattingkii Excel. halkan waa cellka si aan format gareyn lahayn kaligiis. cellka waa kan kaliya inaan format gareyna la rabo, iyo Excelka markaan wada format gareynayno intaan baan formka Excelka ka dooranaynaa. formattingka cellkana waxaan ka dooranaynaa intaasoo kaliya. halkan waa editingkii meeshaan ka samayn lahayn oo aan ka qurxin lahayn, ka editingka wax ka bedeli lahayn Excelkii oo kale. maanta cashirkeena muxuu khuseeyaa toolbarka, nameboxka, iyo wuxuu khuseeyaa Excel saan u save gareysan karno oo aan ugu xiran karno password. cashirka saddexaad baan kadib noo gudbaynaa. sidee markaa warqadaan ku shaqeyn doono accountigan kaga shaqeyn doono passwordkoodii ama aan u save gareyn karnaa. magac baan marka hore u bixinaynaa companygan ku shaqeynayna magaciisa. ila soco cashirka saasuu ku bilowdayba. marka cell markaan qurxinayno waa idin sheegay halka cell
halkaan ka qurxinayna wixii cell qurxina halkaana waa excel ka formattingkiisii okay ka bax markaa halkaan cell dooro markaa halkaan waxaan ka dooranayaa marka cellka kaliya inaan qurxiyo ila soco markaa saas u fahmaysaa hoos baan soo dhigay okay halkaan maxaan ka qurxinaa format column halkaan waa formattingkii iyo isbedeladii aan ku samayn lahayn excelka halkaan marka hore waxaan sameynayaa maxaan rabaa kan inaan ka sameeyo fartiisii inaan weynaysano oo aan ka dhigno okay tableka aan ballaariyo aka cell stylekii kaasaan dooranayaa okay waa iska daynayaa haddii aan rabo marka warqadan aan ku shaqaynayno matalan ba intaan aan iska tiraan rabaa hal mar waxaan saarayaa highlight clear all iska wada tiray warqadan wuxuu kuma qorno waa bilow xisaab baan soo gelin doonaa laakiin casharkeena maanta muxuu yahay inaan halkii cell aan qurxino halkan ka dooro boardkii oo weynay halka ka weynay baa laga wadaa aka waan fahanay tanna marka waxaan rabnaa inaan save gareyno file save desktop edit book 1 book save gareynaya mar raba kambanigayga magaciisa ila soco hadda talaabaan qaadi doonaa ma boobsiinayo company markaan save idhaahdo waan kusoo noqonayaa save as browser kan usii dooranayaa halkaan aan dooranayaa tools maadaama uu save gareysan yahay marka hore aan save gareystay excel workbook uu yahay journal option baan dooranayaa security number baan kan gelinayaa 1 2 okay baan iska leeyahay la soco adiga waa bedeli doontaa ani waxaan ka shanayaa 1 2 okay baan save baan sii raacinayaa yes save baan sii raacinayaa la soco kan waan ka baxayaa desktop-kayga baan imaanayaa excel ka soo fur company-gu laa waa ka password buu ku weydiinayaa waxaan soo geliyay 1 iyo 2 okay wii furmay marka 1 iyo 2 markaan ku xirtay company-gaygii ma laga geli kara marka waa aasaaskii casharkeenii lesson 2 oo ahaa names boxka inaan ku barano name boxku halkan magacaaga soo qabanayso toolbar-keen inaan aragno iyo menu barka lesson 3 baan usoo gudbaynaa oo functionska qayb ka mid ah aan baran doono waana Somali Star Online Training casharo fara badan baa inagu soo socdo hadba tilaabaan hore u sii soconayaa ila soco ardayo buugaana casharka ka qaadan doonaa lesson 2 maadaama buugaan ka soo qaadanay waxaan usoo gudbaynaa lesson 3 oo buugaan ka qaadan doono wixii macluumaadka somalistarabadiyo.com way u soo diri kartaa fariin kaasa kugu filan ama waxaa fariimay u soo diri kartaa lambarka goliska lambarka hormuudka iyadoo casharo fara badan aan ka soo wada faa'iideysanay buugii lesson 2 baan soo qaadanay sidaan password ugu xiri karno save gareyn karno waxaan usoo gudbayaa lesson 3 iyadoo casharadeenii faraha badnaa aan ku guda jirno hadda waxaan arki doonaa passwordka si aan u bedeli karno kaas inaan ka tago mar raba casharka intaan ku guda jiro ayaan rabaa passwordka inaan bedeli karno okay file dooro dib u dooro save as dooro browserka waa desktop-kaan dhignay waxaan dooranay tools passwordka change baan ku sameynaynaa 1 2 waan ka saaraynaa okay baan dhaynaa password oo dhan haddaan rabno mid kale aan ku bedelaynaa haddaan rabin waxaan dhaynaa okay password dhan ma rabno save waa sii raacaynaa yes waa ka baxayaa kan marka waa soo gelayaa password oo dhan ma laha waan ka saarnay passwordkii waan baranay marka sida loo bedelo passwordka ama sida looga saaro marka lagu xiro casharkeena inta haynoo joogo iyadoo cashar kale aan soo gudagali doono sida ugu dhaqsiyaha badan waana Somali Star Online Training casharadii faraha badnaa baan ku guda jirnaa step ka ahaa lesson 2 waa ka dhamaanay lesson 3 baan usoo gudbayaa sidaa darteed fi amaan Allah